قريب معها dhacdooyin hore u dhacay weey ninka la yiraahdo Faysal Abdi Roble iyo ninka kale oo la yiraahdo Maxamed Abdi Maxamed oo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Ciisa leh hadallada meesha ka sheegayaan wax nagu cusub ma aha ninkii la oran jiray Salman Rushdie waanu marino ahayo hintiga ahaa wuxuu alifay kitaab la yiraahdo Aayat Shaytaaniya saasoo kale ahayd sideetanadii waxa kale oo sideetanadii soo baxay nin la yiraahdo Maxamed Taahir wuxuuna ka soo baxay Suudaan anu waa joogay waan xaadiray laba sano meesha wax ka akhrisanayay oo ku jiray baan la kulanay wuxuu diiday aayaadkii madaniga makiga asal buu ama madaniga khaas baa buu wuxuu diiday xijaabka sharciga oo dhan waxa kale oo ognahay Maxamed Siyaad Barre inuu ka hor yimid aayaad dhan rubuc sudus jinni hada leeyahay oo qoran yihiin aduuban yihiin isagana waa dhinteen ninna hadda ma nolo wixii ka raacay waan ogeyn 10 sheekh baa ka hortagay 10 ka sheekh ilaahay baa ugu dhawaadeen ilaahayna ummadda Soomaaliyeed waa ku badbaadiyay subhanahu wa ta'ala diinta hadda maanta haysataan fadliga bacd Allah 10 ka sheekh dhiigoogii baa lahaa ka hortagay qadaan Ramadaanti aakhirkeegii waxoogaa tacliiqan ka sameeyay baa isku soo warada qaaday 10 kaas marka nin Yurub ka yimid baa ii waramay yaa nin kale u waramay iga yar xishooday wuxuu yiri markii tiirka la geeyo 10 ka wadaad oo wajiga indhaa laga xidhay yaa ninkii ugu odaysanaa wuxuu ku yiri anu maleeyaa ma Sheekh Muuse sababtoo labaan anu ka aqaanay Sheekh Muuse oo sheekhyagii ah iyo Sheekh Burca ka yimid Sheekh Ahmed marka uu ka daayaraa Sheekh Muuse anu maleeyaa markii inuu yahay markii la xidhay iyo wuxuu ku yiri warniyo indhaha iga xidhin waxbaan arkayaa warniyo indhaha iga xidhin buu waxbaan arkayaa waxa suran malaa'iktii arkay indhaha iga xidhin ninkii waa diido waa xidhay Yurub hadda ku nool yahay iyo America indhuu ka jiran yahay dadkii baa weydiiyay maxaa kugu dhacay haduu hurdo yaa dii kale indhahu saalaya ninkaas hadalka igu yiri indhaha iga xidhin waxbaan arkay markii aan diideen xidhay baan bilaabay buu tan waa indhahan hadda adiga indhahaagu si tartiib ah bay moogta saaleeyeen isaga saas oo socda marka diidmo horta waa hormartay horena waa uga digno waxaan idhi dadka dibadda ka imanaya oo dadka Soomaaliyeed dhinacna ka gargaaro khayr badan sameeyay culumadu raacday dadka waxa ka soo noqon doona nasaara kristan wata ama munaafiqiin lagu shaqaysanaya yaa ka soo noqonayaan waxa kale ka dignay horay shiico ummadaas halkii la rabay waa la gaarsiin kari waayay buuqa dhacaya iyo hanjabaadda soo socota iyo dadka inagu soo rugmaday oo dhinac fisqi ah oo la inooga dhigayo maxaan ku leeyahay hidiyo dhaqan oo dhinac gaalnimo ah arrimahaas digniin weeye ummadda Soomaaliyeed loo digayo weeye idinka laakiin hortina ay taala arrintaas wala inoo soo socdaa wala inoo soo xaytay labada nin oo nin la yiraahdo Faysal Abdi Roble nin la yiraahdo Maxamed Abdi Maxamed magacooga waxaan u sheegayaa waa digniin baan u sheegayaa digniintaas waa maxay hadii la noogu yimaado aqeedada hadii la noogu soo galo masaajida hadii la noo yimaado waxaan ku ciraysanay qabri baa ka xignaa rida way loo gaadaa ninka soo qalbigiisa ku haya ninka noogu yimaado shariicadaas annaga Amerika isku diin maniin waa nasaara ninka daliishanaya Amerika ha u tago afa xukmad jaahiliyada yabquun ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آياتها القرآن waxay ku soo degeen noocan oo kale noocan ay ku soo degeen Soomaali waa dad muslimiina waa ahlu qibla waa shaafiiciya waa dad isku afa waa dad isu wada dhow xaqaa'idoodii iyo caadaadkooda horaa loo difaacay inta aan nool lahayna waa difaacaynaa wallaahi billaahi waa difaacaynaa ninna ugu dulqaadanay ayankan qabri aan galaa nooga fiican qabri nugu qabri inaad maanta lanoo soo guuxo oo la yidhaha kana istii baan dib u noolaynaynaa oo kana istan baan dhisaynaa oo daliil la yidhaahdo waa ridda waxaan oo kale waa diinka bax labadaanni waxaa leeyahay toobadkeena ilaahay u noqda ka noqda hadalkaas toobadkeena haddaad ilaahay saa kula kulantaan islaamnimo ma haysataan sababta oo min nawaaqid aliimaan waxaa ka mid ah qofku sharciga inuu yidhahdo waktigan uma suubado waa kufri bawaaxa weeye waa diinka bax weeye waxaasoo kale annaga in noogu soo dhuunto dharka in la noo soo huwado mana aqbalayno aabbayaashayana ma aqbalin annaguna yeeli mayno intaan nool lahay haddaan qubuur gallana ilaahay dad musiib diinta islaamka ilaaliya innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun marka nimankaa waxaa le ka noqda daliishanaya amerika diin islaam ma haysato amerika waa dawlad gaalo ah iyaguna way ogyihiin oo way ku faantamaan waxa weeye kanaa'is baan iyagu haystaan annaguna masaajid baan haysanaa annagu ahlu waxaan nahay maka qiblada iyadu waa maka nebigu maxamed sala allahu calayh wasallam nebiyullaahi maxamed iyo waxaan caabudaynaa ilaahay keliya laa ilaaha illa allah baan leenahay iyaguna waa mushrikiin ilaahay ka goostay ka soo horjeeda isku diin ma nihin diinkoogu waa baadil ka iyaguna waa xaq inaan reer baadiye noqdo oon adhiga raaco oo geela raaco oo dhulka beerto oo baadiyayga ilaahay ku caabudo oon aadaamo baa iiga khayr badan waa shan dar inaan ku noolaado wabilaahi tawfiiq sala allahu calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam